يقول ودادو حكوتنا علماء المكافحة علماء الله دقالك أرجع سده وحكم ذا إنه كويري ملها قاركود أو علماء قاركود النقاشين وكويري وحاتهين علماء اللي هذا محاربة الإرهاب علماء محاربة الإرهاب وحين أهيد مسألة دي كدلتي صومالي قلبيد هي كيس كيدي بيان أن كسو صارني هي النقاش كي كدشو شيخ شبلية سجد أحمري مسألة دا إيضا أيو مركا ودادي بيان كقري بوكا هالليا مركزو حوليه وعلماء ريريت باتين رجع إرهاب كلا دقال منواتي إرهاب كرقل دنا متقنا ورجع قال هذا وش قيوه قال هذا وش قيسان وحكم إذا أحيانا نقول السحي مركا وانكويري علماء الآن لا مكافحة الإرهاب واحد هي علماء العصبة واحد مي كان مدين سو قردر ما هذا الكاس هوا قردر محاكو جي وان حناقصن هاي طيب حنقول هدو حناقو جي يا شيخ حسن او هدو حناقو جي حناق وينات كنترول شيء هيده رجني ورجعت كو حد غدبتي ama ka xalaasho ama waxaad samaysaa risaaladan hadda soo saarayso ha ku soo baxdo adoo ka noqday khaladkii kana cudur daaranay waayahay buu sheekhu risaaladii baa soo baxday uu ii keenay waan fiiriyay mise kuma taalo sheekhi telefoon baan u diray waxaan u sheekh sidan aan isku ogeynay dadkii aad ku xad gudubtay inaad ka cudur daarato maadan ku soo qorina maxaa dhacay sheekh gadaal shaada wax badan baa isbedelay buu waayahay baan idhi maxaa isbedeli kara ruux walaalka oo muslimood ku xad gudubtood qirsanta inaad ku xad gudubto maxaa isbedeli kara cirdigiisu kuugu banaanaan kara miyaad garanaysaan idinka waaba hawsha ayada ah inay aan aaminsanahay kitaab aan ku qoray markii aan qoray maxaa wax looga dhihi waayay niman la dagaalama mujaahidiinta iyo nin walbo gaal iska difaacay soo ma jiraan oo ka daran manaabirta fadhiya oo gaalkaba ka daran hadduu sheekhu xusuula asagu xasan wuxuu taageeraa si in la'aana kooxyaha حق جركا وركاس الله ما قرناي نمن لا دغال ما ددكي حق جر واركان يا متطرفين يا ارهابيين لا دغال ودادو دوب واوين oo dhaqaale ku qaataa jira gaalana way la dagaalamaan ee waxa laga yaabaa in caamilku iyo baacidku kala duwan yahay oo ninkan wuxuu la dagaalamay waa muslimiina baabi'i oo gaalka ah ninka wadaadkeen haysanana wuxuu la dagaalamayaa fitna iyo inxiraaf manajis oo la dagaalan biyo shuk waa maxay labadin wax la dagaalamaysan مجاهدين تي واحد إرهاب تقانان نمان كنا واقلوا هران بعول بان أهين إذن كنا وذا وحاتين آفيسانه إن اللي ذيك الدقوية أنت اللي أول ذكره شيخ أنا صاحب بضي إله المعين آفيسان هاي بوارك مركب وانا نقد دقي بانك كلا رجع صاحبين اللي قد دقي شو محكو دي ده هي يعني وهولها الله يا بي ازدواجية ازدواج معايير وحلو رنجلوي وهول اللي بدنا وهوش عيدا قضية وحوشوخ وحدنا إثارية مسألة العطف الأسري ويجي الصومالي قد أي دفاعين بيانات كو السعودية الله دقالمي أي مساجد أي بلاباتي يعني شيخ يا صاحبي وحان كتهم هي دفاع الصومالي قلب الدفاع هي دين معه وتعصب قيس وأبصم أهيلين يؤجد النبى إن قاضي بان كهالي إن يقضب النحين ويسن دين أهم بأي مقتوانا كهالي هوش بو شيخ آد وقحان وصدي كدب وحكفا إذا يستي قضية مرضى عدو عجل انتو أروريي حقوق دب الله أركي باقويسكي أنا قهبيني حقا انتي قبتان بين شيخر هالي قالي عجليه وحدونها قصة مايو هشية على مصار كعانا شب وحول بواكيال سيدي بان يلو كعانا شب ايو مدحان كدن كبار هالو بان كورا أضابي الدلي لك أدنا ومدفال له لما عنا تانكي على هدات شيء ضد يعني مركز الشيخ محمود الأحمر رئيس الرسالة دي بان كو قري مسائل فربضان والشيخ محمود خسيسي iyo ku gudba reerkuna waxay xukumaan ilaahan sheekhu wuxuu ku yidhaa ma khilaafi kartid yeel wuxuu ku yeelaa yeesho wuxuu yiri kitaabka intaadan soo sar u dambeeya oo tanbihaadka isoo mari soo sida datidiisa balaayad ka dhaqaaqi iyo keen waanu geeyay safaxaad badan iyo masaa'il badan buu gooyay oo sheekh maxamuud khusayyi buu sheekhu hal gooyo hal xadfay tuhdaf هذه الفقرات والمعلومات وان حدفي لما قضب بصوح دي علماء مكافحة الإرهاب إيو وذاده وحكم مقنية العطف الأسري
danqasho qabiil iyo qoys inaad ree Soomaaliga u difaacaysan oo san diin ahay waana asbaabayo aminkan meesha way ku jirtaa annagu wada fadhino qadiyadan labadan qodob waa inaad reebto waxaan ku labadan qodob wax ii muuqday weeye bal u kaada sheekhu waa isku dhibay qaabkan oo digtad ahayd uu hadlay intuu wareegaysan karay ama weerar karay nin baa nala fadhiyay waxaan ku iri icaatu nadar baan ku sameyn icaatu nadar waa inta aanu ku xusuus sheekhu qaabka uu dhigay oo hawlo kale ka sii daayay oo aan meesha ku ogeyn icaatu nadar baan ku sameeyay kitaabka intuu hal xadfo waan xadfay ama kana kitaabku uu yaala labada mas'alo waxaan arkay inay munaasabto meesha loo daayo kadib uu sheekhu soo wuxuu labada mas'alo maxad u goyn weyday in meeshooda loo daayo sida ay yihiin baa ila qumanaataan ku ori sheekhu qaab kale u dhigay sida bay ku baxday العطف الأسري وداد ku eedeeyay iyo saaxiibadii waxa weeye waxaan rabaa inaan in dul istaago jabhadii Soomaali galbeed sheekhu waa difaacay gaalnimo in la saarana wuu diiday shariifkii saaxiibadiina uu ku duulahayay isku sabab iyo isku wax bay sheegteen kuwan dastuur bay aqbaleen oo qaateen shariifkuna dastuur buu qaato aqbalay عبد الله يوسف بو تكفيرين جيري او دستوري وخي لا ku takfiirin jiray sheekh oo la og yahay nimankaas Soomaalida kala iyo daaroodkii hawiyaha kala waxaad u difaaci weyday kuwana adugu naf bixi sheekh maxamed oo maxay tahay baani muuqatay ee muhaadaradii aan dhigayna aad ugu weerarto tiri khafiifi maqaalaadka aan qorna go hawsha ka hadlin hawsha iska ilaali dagaalkii dhacay waad ogtihiin waxa ay muuqatay qadiyadana inay tahay qadiyad qoys oo aysan ahayn qadiyad diineed warhawshan hawla qiyaas iyo taqdiir shakhsi aweeye adoo niman baad ku tuhuntaa anigu wuxuu ku tuhunsan yahay in si indhala aana nimanka wax kasto ay sameeyaan aan maro u saaro u difaaco hadaan taan kugu tuhmo inaad Soomaali galbeed ku naf baxayso maxaa dhib ku jira waxa aad u soo ogashay dadka in la ogolaada wanaagsan